beeralayda ku dhaqan qabalaha Fadxuli ayaa sanadkan guulo horle ka soo hoysay wax soo saarka liinta Burtuqaanka oo la joogo xilligii la goosanayay. Mudane Saciid Buux Faarax waxa uu ka mid yahay beeralayda hadda ku najaxday wax soo saarkan beeraha, waxaana booqana xilli uu ku hawlanaa goynta liintaasi oo looga iib geysanayay oo loogu soo doontay beertiisa isla markaasina halkaasi uu ku miisaamayay. Waxaana liintaasi hadda sanadkan ay kor u kacday qiimaheegu, inkastoo uu jiro caqabado yaryar oo dhinaca cayayaanka iyo sidoo kale cudurro kala duwan oo hoos u dhigay wax soo saarka beeraha. Haddana waxa uu u tafaxaytay sidii uga midho dhalin lahaa wax soo saarkaasi. Waa kan isagoo nooga warbixinaya guud ahaan wax soo saarkiisan beerta liinta oo isagu hadda gaadhay xilligii la goosanayay isla markaasina ka howlan iibgeyntiisa. Waxaan ku bilaabayaa magacayga Saciid Buux Faarax. Beerta magaceega maxay ku talaa? Beertu Fadxuli way ku talaa. Maanta maxaad ka goynaysaa? Maanta waxaan goynaynaa Burtuqaanka goynaynaa. Burtuqaanka 12 bilood sugeynay. Ma sha Allah alxamdulillah waxa Ilaahay naga siiyay baan ka goosanay maanta. wax kaloo ka sii badan inaan ka goosanayna waan rajaynaynaa. waa ka dadaal baan ku jiraa hadda imika Burtuqaanku waa ka geedida ee gaagaaban ee waa kana iska arkaysa khamashko aan carbinayno waa sii ballaarinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. waxyaalaha hoos u dhiga suuq la'aan baan haysataa. midda koobaad suuq la'aan, suuq xor ma haysano. marka waxaan u baahanahay suuq, waan u baahanahay dadka amba warshadeeya amba leesoole ganacsi waaweyn oo annagana maal geliyo Burtuqaankana naga qaata yaan u baahanahay. kolka xagga suuqa ayaan ka liidanaa. xagga jidadkana waan ka liidanaa. xagga jidadka jidad caadi ma jiraan. waa kolla dhooqa kolla kolba Burtuqaan cirku cirir hadduu doo Burtuqaankii ilaa 7 dhan dib u dhacaya. marka wadooyinna waan u baahanahay. bacriminta xagga wadooyinka waa sidee? dawooyin ma haynaba xafiis xagga beeraha oo dawooyin ugu taakuleey ma jiro. waxaan anagu soo iibsana maahne wax xafiiska beeraha oo dawooyin siiyo ma jiro. marka dawo haddaan u baahno waan soo gadanaa. imika qiyaas ahaan dee ilaa 200 geed way noqonaysaa. laakiin de Burtuqaanku sidii hore uma sanad uu gaabiyaa. Burtuqaanka sanad caadi buu dhalaa. sanadkan caadi uma dhalin Burtuqaanku hoos buu u yaalaa sanadkan. sanadkii hore ka fiicnay sidan. sanadkii hore ka fiicnay. hay waxaad nooga warbixisaa bal liinta maanta qiimaheedu inuu marayaa? qiimaheedu maanta wuxuu marayaa 60 liinta. kiilooga 60 buu marayaa. sanadkan oo dagaal la dhacay Itoobiya markii hore iyo imika marka la isbarbar dhigo midkeeba qiimihiisu kor u kacay? qiimihiisu sanadkan qiimihiisa Burtuqaanka waxa sanadkan kor u dhigay Burtuqaanka yar sanadkan moogta oo sidii sanadkii hore u dhalin. marka maadaama Burtuqaanku yar yahay iyo 60 u gaaray maanta markii hore 60 ma gaarin ba. dagaalada Itoobiya ka socda wax saameyn ma ku keeneen? wax saameyn aad wax saameyn ugu keeneen. markii hore maqala meesha la leeyahay Burtuqaanku xoog buu tagay. maanta la tagniinkiisu ma taga uu ku yar yahay. marka Addis Ababa kaliyaata Burtuqaanku imika waxa maarsheed arkaysa imika waxa oo dhan aad arkaysa meesha yaala saameynta dagaalada weeyaan. mar horeba waan guran lahayn maadaama ay dagaal jiraan oo qiimihiisu hoos u yaalay yaan ma arkaysaanay iyo qiimihiisu hoos u dhacay. sideen u sugeynina maarshi buu noqday badde. sideen dagaalada u sugeynay saameyn marka dagaalka saameyn wuxuu ku yeeshay baalka imika maarshiga ee la iska reebay lama reebteen markuu gaadho umba la qaadi lahaa dib u dhacay. bilihii la guray buu dib uga dhacay. marka sidaas darteed buu Burtuqaanku iyo saameyn ugu leeyahay dagaalka. markii horena mar horeba waan guran lahayn. imika waa bishii la waraabinayba Burtuqaanka waxaan gurayno. darri bishii la leeyahay waa la waraabshaa Burtuqaanka. imika bishii la waraabinayba waxaan gurayno. marka saameyn dagaalkuna halkaas intaas ku leeyahay. ugu dambeyn maxaad macnaha dawladda iyo xukuumadda codsi u diraysaa sidii wax soo saarka kor ugu qaado? wax soo saarka inay garab joogsadaan xagga siirka naga caawiyaan, xagga beeraha, xagga mooteerada iyo leesoole biyaha inay naga caawiyaan iyo xagga siirka ayaan fariin u diray amba wadooyinkana ay noo hagaajiyaan.
taasaan fariin u dirayaa gebiyaha xagga dixina gebiyahana waxaan ma arkaysanay daadku saameyn weyn ayuu beerta imika jaarkayga waa ka wada aragtaa waa ka gooyay daadku in badan buu gooyay ani laftayda in buu gooyay geedaha baan iskaga beeray marka taana waxaan ka codsanaynaa dawladda inay gaaboon ay nala dadaashada maadaama wax soo saarka ku jiro haddaan imika halkan biyaha ka baxan annagana biyaha lagu kiilay dixin moogta biyihii baan lagu kiilay beer kaloo biyaha ka baxsan ma karayno beerna ma noqonayso kolkaa maadaama meelahan biyaha leh ee daadku waxyeelada u geystay in nana garab galo oo gaboonka maaragta ay dawladuna garab gashay gaboonka iyaduna nugula dadaashaday in kasta wax xagga rabbi ka dhacay tahay daadku wax ilaa iska watay in kastuu yahay waa in dadaalkiina dawladuna ay nala dadaashay ma arkaysaanay iyaduna naga gacan qabatay ay gaboonka nugu dadaashaday taasaan ka codsanayaa guud ahaan beeraleyda ku dhaqan qabalaha Fadxuli ayaa hadda waxay ku hawlan yihiin goyntii wax soo saarka beerta gaar ahaan burtuqaanta oo loo iibgeeyo dhammaan ilaa iyo dalka deegaanada dalka sida Addis Ababa iyo caasimadaha kale waxaana ay codsanayaan in laga caawiyo dhinaca cayayaanka iyo sidoo kale cudurro yaryar oo dhibaato ku hayo wax soo saarkooda iyo sidoo kale fatahaada daadka oo isaguna qaar kamida dhibaato ku haya oo gebi ahaanba gebiyadu ay ku fatahaan wax soo saarkoodana ay ka baabiyaan waxayna ay Fadxuli kamid tahay beeraleyda ugu wax soo saarka badan qabalahaasi gaar ahaan degmada Erar isla markaasina dadaal xoogan ugu jirta dhimista saboolnimada Xasan Cabdi SSD TV qabalaha Fadxuli ka tirsan degmada Erar